dhawaad 4 ruux ayaa 12 saac gudahood nafta loogu dhaafiyay qaybo kamid ah degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Xiisad adag ayaa halkaasi ka taagan oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada daga sidoo kalena isku hor fadhiya midna isugu ugaarsanaya qaybo kamid ah degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Waxa halkaan idinku soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gudaha degmadaasi iyo xiisada u dhaxaysa maleeshiyaadka halkaasi wada daga. wararka ka imaanaya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado gaar ahaan tuulo lagu magacaabo Xaliimaay waxaa la soo warinayaa 2 nin in halkaasi lagu toogtay sidoo kalena haweeney kale dhaawac uu soo gaaray kadib markii maleeshiya beeleed hubeysan ay weerar ku qaadeen 2 ruux oo kamid ah dadka tuuladaasi. wararka ayaa sidoo kale intaas ku dareeya in xiisad adag ay halkaasi ka taagan tahay oo u dhaxeeya 2 maleeshiya beeleed oo halkaasi wada daga. maalnimadii shalay ayaa sidoo kale waxaa halkaasi lagu dilay 2 ruux oo kale waxaana dilka xalay uu daba yaalaa dilkii maalnimadii shalay ka dhacay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado oo ay isku kala geysteen 2 maleeshiya beeleed oo walaalo ah oo dabcan halkaasi wada daga sida xogaha iyo wararka ay sheegayaan. xiisada ayaa cirka isku sii shareeraysa waxaana dilalkan ay u kala dhaceen argoosasho kadib markii maalnimadii shalay halkaasi mid kamid ah maleeshiya beeleedka ay ku dileen 2 ruux taasi oo keentay habeennimadii xalay in 2 ruux oo kale loogu aargudo haweeney kalena halkaasi lagu dhaawaco. xiisada ayaa cirka isku sii shareeraysa lamana oga halka ay ku dambeyn doonto. maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado kama aysan hadlin xiisada halkaasi ka taagan ee u dhaxaysa maleeshiya beeleedka. sidoo kale wararka waxay sheegayaan in wili ay taagan tahay xiisadaasi ilaa ay haddana dhaqdhaqaaq maleeshiyaadka ee wadaan laga dareemayo gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. waa 12 saac gudahood oo 4 ruux nafta loogu dhaafiyay sabab la xiriira aana qabiil oo halkaasi ka taagan. wixii waray ka soo kordhay xiisada halkaasi ka taagan iyo waliba maleeshiya beeleedka halkaasi isku baacsanaya iskuna dagaalaya wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaa idinku soo gudbi doonaa.